Baxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax al-Siisi ayaa ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. Qaybo ka mid ah dalkaasi dibadbaxan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee Masar ka dhaca tan iyo markii xukunka uu la wareegay madaxweynaha talada haya Cabdifataax al-Siisi. Boqolaal ruux ayaa xalay fiidkii soo buuxdhaafiyay fagaaraha Tahriir oo ahayd halkii ay ka bilaabatay kacdoonkii 2011 ee xukunka looga tuuray madaxweynihii hore dalkaasi Xusni Mubaarak. Booliiska ayaa la sheegay inay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa iyagoo kala didinayay dadkii iskugu soo baxay fagaarahaasi. Dadka dibadbaxaya ayaa la sheegay inay ku eedeynayaan madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax al-Siisi musuqmaasuq iyo ku tagrifal awoodeed, kana dalbaday inuu xukunka iskaga dego. dalka Masar ayaa waxaa inta badan madaxdiisa xilka looga tuuraa xukun milatari ama kacdoon shacab. Maxamed Jaamac Bulaale, Garow.